jeedinaya khudbad mahadnaq ah aan u jeedinayo taageerayaasha isbedel doonka Jamhuuriyadda Somaliland. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Somaliland ha noolaato. waxaan ka salaamayaa dhammaan shacbi weynaha Jamhuuriyadda Somaliland. walaalayaal waxaa maanta si guud dalka uga soo dhamaaday ololihii doorashadan isku sidkan ee socday muddada 3 toddobaad ah. inaguna sida miisaan kale xuduudeena aynu ugu muujinay qof kasta oo idin ka mid ah waxaan si kaliya laaba uga mahadnaqayaa kaalintii uu ka qaatay iyo taageeradii aydan kala hadhin. waxaan si weyn ii dhiirigelinayay tamartii xiisihii ilbaxnimadii mucjisada ku noqday fagaarayaasha ololaha ee aad garabka ku siiseen geediga isbedel doonka ee dalka. walaalayaal waxay noo dhamaaday maalmo aynu dood iyo aragti wadaagnay, saacado badan oo aynu fursad u helnay isxal waraysi iyo inaynu xogagaal u noqono duruufaha runta ay jira. nasiib wanaag waxaynu isla garanay in maanta dalka lama huraan u yahay isbedelka dadka iyo dalkaba. qiimo weyn bay ii lahayd inaan soo maray 6 gobol ee Jamhuuriyadda Somaliland. deegaan kasta si sharaf ah leh oo aanan erayo kaga mahad celin karin ayaad iigu soo dhaweyseen. 10,000 oo taageerayaal ah ayaa saacado badan dhaxanta iyo qorraxda u joogay si ay iigu dhiirigeliyaan hogaaminta isbedelka. waxay ahayd waayo aragnimo weyn oo aan fursad u helay inaan dhegeysto tabashada, talada iyo tusaalaha dhammaan qaybaha bulshada, haweenka, dhalinyarada, waayeelka, aqoon-yahanka, siyaasiyiinta waayo aragga ah iyo hogaamiyeyaasha dhaqanka. waxay siiseen dardaaran iyo talooyin xoojiyey fahamkayga iyo himiladayda mustaqbalkeena. waxaa kaloo sharaf ii ah inaan u mahadnaqo ururada siyaasadda ee isbahaysiga iyo iskaashigu inaga dhexeeyo, ururada aanu isku aragtida ka noqonay baahida siyaasadeed iyo duruufaha in la bedelo u baahan ee maanta dalkeena ka jira. waxaa si gaar ah u xusaya urur siyaasadeedka KAH iyo hoggaankiisa sare oo muujiyey waayo aragnimo iyo bisayl siyaasadeed, bilaabay isbahaysiga. dad kala tusay in danta siyaasadeed ee ururada, xisbiyada iyo shakhsiyaadkaba ay ka horeyso danta guud oo ah inaan qaranka laga badbaadiyo xaaladda warwarka leh ee uu maanta ku jiro. waxaa iyaguna mahad ballaaran u jeedinaya oo la mid ah ururada siyaasadda ee barwaaqo, talo wadaag iyo shacabka iyo dhammaan ururada iyo haldoorka isu taagay gurmadka isbedel doonka ee taageerayaashiisu ay maanta waajibka ku tahay muwaadin kasta oo la jecel ka qaba dalkiisa. walaalayaal dhammaan boqolaalka kun ee isbedel doonka Somaliland waxaan idinka mahadnaqayaa kalsoonida aad siiseen in isbedelka aan idinku hogaamiyo, inaad garab igu siiseen tallaabo kasta oo aynu maanta qarankeena ku badbaadinayno, tallaabo kasta oo danta dadkeenu ku jirto. waan bogaadinayaa dadaalada midho dhalka ah ee ilaa hadda inoo qabsoomay. alle ayaynaan uga mahadnaqaynaa in aqlabiyadda dadkayga ay maanta igu garab taagan yihiin isbedelka. insha Allah waxaan u noqonayaa isbedelka samaha, badbaadada iyo horumarka. walaalayaal dadaalkii baaxadda lahaa aynu soo galnay waxuu fure u noqon doonaa inaynu guul ka gaadhno yoolka weyn aynu mustaqbalka ifaya ugu abuurayno ubadkeenna insha Allah. mar kale waxaan idinka mahadnaqayaa xuduudda aad ku taageerteen isbedelka. waxaan idinka mahadnaqayaa inaad geedigan dhammaantiin ka qayb ahaydeen. waxaan idinka mahadnaqayaa dal jacaylka iyo go-aanka isbedel doonka ee aad muujiseen. waxaan idinkaga tegayaa erayadii hadraawi ee maansadii amal: axdi jaba abaal luba kaa eegi maayee igadh iyo maqaarkeed inagoo ahaanaan hadalkii ku ururshihe. mudane madaxweyne waa kan kaarkaagii kale. wadankii bulshada midkii wadi lahaa walaalayn lahaa waa naga hantilay.
وكا وطني وطن كيسمو وسني بريه فرحة الله